kulanti wacan oo wanaagsan meel walbo aad joogtaan si walbood ii daawanaysaan ama aad ii daawan doontaan waa anigoo birta calanka oo idin leh haddii uu barnaamijkan ama muuqaalkan idin soo gaaro sii sheer garee meel fogna gaarsii laagtana ha ka ilaawo sidii shalay xalay iyo maantaba aad la socoteen waxaa aad loo wareejinayay sawirkaas gadaasheeda inkaga muuqdo oo ah wariye ka howlgalo magaalada Beled Xaawo ee xadka Kenya iyo Soomaaliya ee gobolka Gad waa xarunta ganacsiga ee magaalada Beled Xaawo Abuukar baa la yiraahdaa idin sheegi maayo ama reegado u sheegi maayo way yaqaanaan haddaba wiilkan waa nin reer Beled Xaawo ah waxa uu si toos ah oo la shaqeeya gudoomiyaha degmada Beled Xaawo Arog waa kaamiramankiisa waa wariyihiisa waa editorkiisa gudoomiye walbana wuxuu leeyahay markii uu degmo maamulayo wariye la shaqeeyo oo markuu dad la kulmo ama uu wax qabanayo ama hay'adaha la kulmo ama uu shirarka qabanayo uga hooseeyo wariyaalka kale ee qaybta protocolkan u qaabilsan warbaahinta ama media si aysan ugu dhicin gudoomiyahaas error editing wax la yiraahdo oo muuqaaladiisi si wanaagsan ay ugu baxaan wari gudoomiye walbaana leh wariyaalkii marka degmada Beled Xaawo iyo doolow ku sugnaa ama daawul isku yiraahdo ayaa isdhaafsanayay hadallo lid isku ah wariyaalka ugu badan ee aan hadda aniga fariimooda isoo gaareen ee ku sugan degmada Beled Xaawo iyo doolow waxa ay sheegayaan in wiilkan team kale ay soo weerareen gudoomiyahan u tageen la yiri ka wareeji booskan uma qalme annaga jifo kuwa annaga ehel kuwa ka wareeji la yiri aad bay arintaas u soo celceliyeen waa la cunsuriyeeyay saas weeye wala ma fiicno team kale xaqoodan fiiriyay oo wariyaal waaweyn oo caan ah oo annagaba naga macquulsan ay ku jiraan kuwa kalena waxay leeyihiin wariye askari ah oo qori wata tihiin adinkuna arrimahaas marka la isla dhaxgal adinkuna waxaad cunsuriyeeynaysan iyo annagu waa madax bannaan adinku askar baa tihiin hadalladaas la isla dhaxmar isku soo wada duuba ood qaadis iyo jiidis waa isla gurugay anigu ku soo noqon maayo marka wariye dhankaana saan yiri iyo wariye dhankaana saan yiri aniga tooshkaygu wuxuu saaran yahay waa gudoomiyaha degmada Beled Xaawo oo sidaad wada ogtihiin nin aqoon-yahan wax bartay ah sida hadda qoyday maamulada aan ahayn aan aqoon wax la yiraahdo afaara qabiil saa anigu ka aaminsana way saa anigu ka aaminsantiin waa gooni waa laga yaabaa inay aaminsantiin inuu afaara qabiilistaya laakiin anigu saa ka aaminsana waxa weeye inuu nin wax bartay yahay hadduu ninka wax bartayna uu iskala fog yahay inuu ree hebel iyo kala xigay uu ku soo laabanay waxaan fiirinayaa marka ninkaas Abuukar ah oo la soo shaqeeyay gudoomiyaha degmada hadduu intuu riixo sida hadda la sheegay ina uu ku keensado markaas way anu marka seeftaydu ay galka ka baxayso run tagaysa been tagayso anigu marka gabagabadii waxaan leeyahay wariyaal ayagu isku joodo isku mashquulsan anigu dhex geli maayo halse waan cadeynayaa ma jiro wax la yiraahdo wariye madax bannaan wariye madax shabaab wariyaalka u shaqeeyo ma u imaan karaan dawladda kuwa dawladda iyo sistamada iyo nidaamada la shaqeeyana intay soo baxaan shabaab ma soo mari karaan meelay taagan haddii la arkana waa dil wariye madax bannaan marka waa kuma hadda samaanta ma jira wariye madax bannaan kan Jubbaland wuxuu ku hadlaa afka Jubbaland federaalka ay hadii la yiraahdo ay kan federaalka hadii ay maamul goboleedka Puntland isku dhacaan ay kan Puntland hadday maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka isku dhacaan afka wuxuu ku hadlayaa maamulka Puntland ka Soomaaliland waad aragtay wax saxaafad oo madax bannaan ma jirto saxaafad walba meeshay joogto iyo systemka iyo nidaamka ay la shaqeysaa midda kale
ما مدح بنان وريا لامها أمانك كل حملان أو أنت تصور كسو قادا لامها أمانك سيدا نبسوجدا بوليس كميلتريجا حقوقه ده يحروين كود أنت قليل باهينيو ما مدح بنان لما دي كرا ومدح بناي وريس كده BBC الصوماليا المدح بنانينو حتى قبيل لقطيبة مركا عنيق اللي قمنا دعنا وريا مدح بنان أنت أيام كسو قبل يا دي وبرنامج كإنسو قارو سي شركة من الفقر هلا جارسيو